بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شينا من لك يوفشيال وانا دي السلام أمد الصومالية ميل كستو جوبتان إلهي سبحانه وتعالى وحن كبريا قف والبو دبات السن ودبات هذا كقرقاده قف والبو حنوصلين وحنوه كقرقاده ربنا سبحانه وتعالى انت عافماتك قبت عافماتك وسياديو waxaan meeshan kaga hadlayaa Caaisha Yarey waa hooyada Soomaaliyeed ciyaalkeedu gaalada ka qaadatay weeyaan waa gabadhaas yarta ah waxa maanta ay la qowmiyeysanayso iyo ciilka maanta haya waxa weeyaan intaas jaaniskaas yarka ay siiyeen ayay u diidan yihiin mar walba inay siiyaan oo ah inay ilmaheeda toos u qaadato way jeclaan lahayd inay maanta ay sidaa ku kaxaysato laakiin wax ka awood badan baa haysta waa gabadha yarta iyada laftirkeeda aad iyo aad baan uga xumaay Caaishooy waan ku soo duceynayaa insha Allah adiga inta islaama ee dhibaato ay haysataba in dhibaatada ka kor qaado rabbi awlaadi inuu gaalo nooga soo celiyo ma soo duceynayaa laakiin Caaisha waxay niyada gashataa oo khayr ugu sheegtaa in awlaada dadka laga qaaday aad ka nasiib badan tahay qaarkood taas macnaheedu waxa weeye in lagu ogolaaday inaad aragto ilmahaaga aragtidan xitaa inay maaragtay khayrku ku jiro in aruurt ilmihii uu nin muslim hayo reer muslim inay hayaan wixii way isdhaamaan way xoogaa wixii waa adag tahay hooyaa tahay ilmihii waa la qaaday laakiin intanaad haysatay dad baan haysanin aragtidan lagu ogol yahay in muslimka loo dhiibay dad baan loogu dhiibin marka ilaahay u xamdi noq inta kalena way ka soo bixi doontaa waadna ka bixi doontaa insha Allah adiga iyo hooyo kasto ilmo laga qaaday aaba kasto ilmo laga qaaday waa u soo duceynayna insha Allah laakiin rabbi subxaanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa sida ay ogolaanshiyaha kugu ogolaanayaan mar walba inay maalinta dambe ka soo yeerto ilmahaga wad wadan kartaa ilaahay agtiis waxba kama aha qalbiga adkee insha Allah kuna samir qadarka ilaahay markastaba qadarka ilaahay ku samir Caaisha qadarka ilaahay ku samir waa ka bixi doontaa insha Allah biidnillaahi kariim haddana waa adiga waqtiga la qaadanay wiilkaaga yarkasaad wada qaadanaysaa wax lagu farxo aad baan maanta uga murugooday waan ka xumaaday laakiin alxamdulillah wax walba waxbay dhaamaan Caaishoy aragtidaba waa wax dhan يا رب waxaase la yaab leh hooyadu saa u dhibaatoonaysa oo ilmihii saa u daba socota ninkii dhalay ma jirto ayadiibu culays sii saaraya iyadiibuunan ka naxayn iyadiibu cay ugu soo fariisanaya ummadda Soomaaliyeedna qaar baa saa wacaynaysa waxaan ilaahay ka baryayaa inay dadku caqli yeeshaan oo iimaan yeeshaan oo ilaahay ka baqaan Allah uga baqo qofka dhibaataysan dhibaato looguma sii daro qofka murugaysan murugo looguma sii daro waliba ilmo hooyo ilmo laga qaato wax sahlan maaha ilaahay uga baqa ha caayana aflagaadada ka daayay hooyadan miskiinta haddaydan waxba tarayna u duceeya laakiin caayda ka daayay no Cabdiraxmaan cadde wiilkayga taabtay hooyo ugu dambeyn waa kaasa aniga u quriyay dharka ka bedelay hooyo Cabdiraxmaan mama ilkii baa ka dhacaa umaleyn hooyo inay saas mar walba u wadato way jeclaan lahayd rabbiyow awlaada nooga soo celi gaalada adaa weyna waaxide ninkii hayay bay usii wadaa inkastuu muslim yahay rabbi ha kuga asturo oka ninkii baa ka haysanaya rabbiyow u soo celi ilmaheeda yarka oo kuu soo duceynayna Caaisho Tschüss mama tschüss ya mama Ayşe, tschüss. Tschüss. Allah emanet.